website-ka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa la soo dhigay map ama qariirad la yaab leh oo si cad ugu xadgudubtay madax-banaanida iyo qarannimada Soomaaliya. Qariiradan oo ah tan qaaradda Afrika ayaa gebi ahaanba laga tiray Soomaaliya oo sida muuqata lagu daray Itoobiya laguna muujiyay qariirada in Soomaaliya ay ka tirsan tahay Itoobiya. Waxaa sidoo kale yaab leh in Somaliland laga reebay dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay ku darasatay sida ka muuqata qariirada, isla markaana Somaliland laga dhigay dal madax banaan oo ka tirsan Afrika. lama yaqaan sababta ay Itoobiya ay sidan u sameysay iyo ujeedada laga leeyahay, balse waxaa cad in hamigii Itoobiya in mar uun ay baabiso kuna darsato Soomaaliya oo banaanka yimid ha noqoto ku talagal ama sirfa katay. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si aad isugu dhiibay dowladda Itoobiya ee Abiy Ahmed, isagoo rumaysan in isbahaysi uu la sameysto ay muhiim u tahay dowladnimada Soomaaliya.